munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha xarunta dekedda Muqdisho ayaa ujeedkeedu ahaa gaadiid nooca gaashaaman oo casri ah oo uu la wareegayay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa siyahayaha wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya iyo saraakiil kale oo ka socotay ciidanka xoogga dalka iyo Turkiga. Munaasabadda waxaa ugu horreyn ka hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeye Guuto Odawaye Yuusuf Raage oo sheegay in gaadiidkan ay u isticmaali doonaan dagaalka dalka loogu xoreynayo maleeshiyaadka Al-Shabaab. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo safaaradda iyo military ataajaha u qaybsanaha arrimaha ciidanka iyo wasiirkaba. waxaan rabaa inaan runtii si guud aan ugu mahad celiyo dowladda Turkiga oo runtii qalabkan hadda maanta gadaasheena yaalla ee aad arkaysaan iyo kuwa kaleba intaba muxuu ahaa ii sheegay soo gaarsiisay dowladda Soomaaliya, soo gaarsiisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. qaybna ka taasu muxuu ahaa dib u soo dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybaha kala duwan ee ay ku wadaan dowladda saaxiibadana ee Turkiga ay naga garab taagan yihiin. Safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya ayaa sheegay in Turkiga uu mar walba garab taagan yahay walaalihiisa Soomaaliyeed. İnanıyoruz ki Türkiye-Somali kardeşliği, dostluğu daha fazlasını hak ediyor. waxaan aaminsanahay in saaxiibtinimada Soomaaliya iyo Turkiga intan in ka badan ay u qolanto. Sayıtırız desteği sağlamaya devam edeceğiz. waan sii wadi doonaa taageerada noocan oo kale ah ee aan siinayno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Siyahayaha wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa ka hadlay halkaasi, waxaana uu sheegay in mar walba dowladda Turkiga ay garab taagan yihiin walaalahooda Soomaaliyeed, gaar ahaan sidii loo dhisi lahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladda walaalaheena, shacabka iyo dowladda ee Turki. aad iyo aad u mahadsantihiin. si kali laab leh anigoo ka wakiila madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa idin kala wareegnay wixii wanaagsana aadna siiseen oo ciidankeena aad ku deeqdeen waa idin kala wareegnay. noo magaciisa ku hadlayna waa idin kaga mahad celinaa mar labaad mar saddexaad. ciidankeena xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa in ay wax badan ay taraan qalabkaani ay si wanaagsan ay u isticmaashaan insha Allahu tacaala. waa bilow kuwa ka horeeya oo baawar nooc kale waa noo imaadeen, kuwana maanta imaaday, kuwa kalena waa noo imaan doonaan. waxayna ka noqonayaan inaan dhisno mobile unit taasoo baahideeda maantana haysato oo aan u isticmaali kar doonno operationka. Ma ahan markii ugu horreysay oo dowladda Turkiga ay gaadiid iyo qalab ciidan ugu deeqdo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maxamed Muuse Maxamed, idaacadda ciidamada qalabka sida.